Waa qaybta 13aad sheekada Cavalieri oo si taxane ah looga daawanayo channelka aan YouTube-ka ku leenahay Waayo Arag. Asxaabtii hore ula socota aad bay u mahadsan yihiin. Haddii aad ku cusub tahay waanu ku soo dhawaynaynaa. Waxay qaybta hore sheekada inoo maraysay shimbirkii iyo shimbirtii sheekada oo wada jooga xarunta jacaylka ee Taj Mahal isna macsalaameynaya sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. Cidna ma karayso inay si dhammaystiran uga sheekayso waxa ay ku soo aragtay gobolkan Agra ee Taj Mahal sababtoo ah indhahayagu kamaba dhergayaan bilicda meesha taal. Caaliyo waxa ay fadhisay dhinacayga, xitaa inooma dhexayn meel ay hawo soo marto. Mar ayay waxay weydiisay, maxaad ku dhihi lahayd haddii aad maanta la kulmi lahayd Shah Jahan? Aniga oo gacanteeda haya faraheeda ku cayaaraya ayaan ku dhahay Caaliyo Mahal inay dhinacayga fadhiso oo ay Mumtaaz Mahal ka sii naxariis badan tahay. Sidaan u wada qoslaynay waxaanba arkay iyadoo iska ilmeynaysa, markaasaan ku dhahay maxaa kugu dhacay? Farxad ayaanba ku jirnaye maxaad u ilmeynaysaa shimbirtaydii? Waxay igu jawaabtay, waxaan u baqayaa farxaddeena ee ma ii ballan qaadaysaa inaadan weligaa iga fogaanayn. Waxaan ku dhahay, bes intaas le miyay ilintaada qiimaha badan u qubanaysaa? Hadda waa ikan sidaad doonta iga yeelo, mar weliba adigaa ileh. Waxay igu tiri, waxa i indho tirayba waa kelmadahaagan naxariista badan ee inakeen aan dib u laabane. Waxaan si nabad iyo jacayl leh kaga soo laabanay gobolka Agra ee Taj Mahal oo nolosheenna iyo jacaylkeennaba u noqday xusuus taariikhi ah. Waxaan u sii diyaar garoobayaa safarkii dib u laabashada ahaa ee aan ku laaban lahaa dalkaygii hooyo. Waxaa mar kale murug igu noqotay ka tegista halkan aan ku helay dad i jecel, ileen meeshaad baratana waa kuu baas. Shalayna waxaa murug ii ahaa soo aadista meeshan, maantana waa ta aan dhibsanayo ka tegisteeda. Saakay waxaan sii jiidayaa boorsooyinkaygii, waxaana ku sii socdaa xagga diyaaradda. Kabiir, Caaliya, Caasha, Julia iyo Ashraf oo ahaa macalinkaygii cunto karinta ayaa si wada jira gacmo isdhaafdhaafaya igu sii macsalaameynaya, iyagoo aad ka dareemi karto inaysan macsalaameys ka ahayn ee ay ka tahay dib inoogu soo laabo. Waa dhextaal kooban. Waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay kaliya ka fikirayaan quutaliyoonkooda maalintaas. Lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. Caawiya masaakiinta. Sheekadina saaxiibayaal ha inoo sii socoto. Dib u noqoshadii Muqdisho. Waxaan soo caga dhigtay dhulkii uduga ciidaydii hooyo. Waxaan dareemayaa wadaniyad. Waxaad dareemaysaa nusqaan marka aad dalkaaga hooyo ka tagto, sida ay ilmaha yariba u ilgo'o ama ay diifta kaga muuqato marka hooyadii ay ka maqan tahay. Isla sidaa waxaad dareemaysaa sida uu cunuga hooyadii ugu farxo marka ay suuqa ka soo laabato. Adiga farxad ayaad dareemaysaa kolka aad dhulkaagii hooyo ku soo laabato. Tagsigu waxa uu ku socday xawaare dhexe, aniguba degdeg iguma uusan jirin ee waxaan ku raaxaysanayay bilicda waddooyinka Muqdisho oo aan waayo moogaa. Aniga oo 8 bilood qura ka maqnaa ayay ila muuqataa inaan sannado moogaa. Waxay indhahaygu ku jeedaan dhanka daaqadda gaariga oo waxaan macaansanayaa dadkayga oo aan muuqooda u xiisay, midabkoodan maariinka ah ee aanba noociisa oo kale dunida laga helin. Waa abbaarihii 1:18 oo duhurnimo. Waxaad dareemaysaa kulaylka jira iyo sida uu qof kasta baraf u sii wato, walow aniga aanan dareemayn oo uu mukayfka gaariga si ku meel tag ah inoo shidan yahay. Waxaan darawalka ka codsaday inaannu dukaan ku leexanno si aannu cabitaanno qabow iyo shukulaatooyin ugu sii iibinno carruurta iyo dadka guriga inooga horeeya.
Sakariye iyo Sundus oo ah da'aaddii iga yarayd, iyo Habaleyla ayaa ila socda oo eelaboorka iga soo doonay. Markii aannu soo iibinay cabitaannada iyo shukulaatooyinkii, ayaannu gaariga ku soo noqonnay. Darawalka ayaan mooday inuu haraad daran hayay. Markii uu cabitaankii aan u dhiibay qac ka siiyey, ayuu sheeko inoo bilaabay, oo aan niyadda iska idhi, talow ma haraad buu la aamusnaa. Markii aannu nimid guriga, ayaa dadkii oo idil wejiyo farxad leh igu soo wada dhoweeyeen. Wax walba waa sidoodii. Hooyo waa sidii oo ismay beddelin, oo waxay leedahay, haye saqajaankii ayaa yimid oo na nacay. Saqajaan waa hadal hooyo halhees u ahaa oo ay mar kasta igu kajimi jirtay, marna igu caayi jirtay. Indhaheeda ayaad ka dareemaysaa farxadda ka muuqato oo ay ku faraxsan tahay dib u soo noqoshadayda. Haddana waxay iila hadlaysaa qof aana ii xiisin oo kale, sababtoo ah waxay i dareensiinaysaa inuu maqnaanshahayga murug ku hayay oo ay ii xanaaqsan tahay. Hab ayaan siiyey oo waxaan ku dhahay, hooyo sidaad doonta xanaaq iigu muuji, laakiin jacaylka aad ii qabto indhahaaga ayaan ka akhrisanayaa. Waxay igu tiri, muddadaas dheer ayaad iska maqnayd, haddana sidan fudud miyaad igu sasabatay? Halkii ayaan kaftan iyo sheeko ka bilownay oo ay su'aalo badan iga weydiinayeen. Waxaan ku soo arkay Hindiya iyo dhaqamadooda siday yihiin. Imaanshahayga midna ma ogeyn asxaabtayda. Waxaan rabay inaan aragtidayda lama filaan uga dhigo. Maalinkii xigay oo aan si fiican u soo nastay, ayaan soo aaday guriga Maahir. Markii aan soo gargaraacay, ayaa waxaa iga furay Maahir hooyadiis. Way i taqaanay, way i salaantay, waxay i weydiisay goortaan imid. Waxay igu tiri, sii fadhiiso hooyo, Maahir waa uu imanayaahe. Waan iska fadhiistay oo telefoonkeyga ayaan geem isaga ciyaarayay. Albaabka guriga ayaa la soo garaacay. Maahir hooyadii jikada ayay ku jirtay. Waxaan ku dhahay, maama anigaa soo furaya iridda. Markii aan furay iridda, waa waray, indhahayga miyaa? Ii waran saaxiib. Waad nagu kadisay saaxiib. Maahir ma aha waxa soo garaacayay, ee waa Khaalid iyo Faysal. Qolka fadhiga ayaannu soo wada galnay. Halkii ayaannu ka bilownay kaftankeennii iyo isku camirashadeennii. Maahir hooyadii ayaa cabitaan qabow noo keentay. Sidaannu u wada qoslaynay ayaa Maahir oo ordaya qolka noogu soo galay. Halkii ayaannu isku boodnay oo isku marxabaynay. Waxaan dib u galnay xasuustii 8 bilood ka hor, jaamacaddii iyo wixii iga dambeeyey. Waxay ahayd maalin qurux badan oo aannu dib u midownay saaxiibbadayda oo ii ah qoyskayga labaad. Waxay igu qasbeen inaan jaamacadda dib ugu soo noqdo isla beri. Xataa isbuucan inaan safarka ka nasto waa iga diideen, oo waxay xiise u qabaan inaan subax kasta gaariga wada raacno, innagoo wada qoslayna, kana soo degno innagoo isku camiranayna. Nolosheenna hore ayaa iska sidaa ahayd, oo ma jeclayn inay cid kale ina soo dhex gasho. Xitaa wakhtiga imtixaanka, guriga Maahir ayaannu wada seexan jirnay. La soco qaybaha kale oo sheekada maanta halkaa ha inoo joogto.